الحمد لله ثم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أيام هذا الأسوناتي عليه نسور تقلي إنه مرك على إسأرنا صون وجب عليه نو سوى نكسن أنا وعافماد قمنا نوغسو دمي نوغسو إدلي أيام هذا أي أسوناتي. maanta waxaan rabaa mowduuca inaan kaga faa'iideysta idinkugu soo gudbiya arrin dad badan ay isleeyihiin soonka way burinaysaa oo dhib ay u geysanaysaa. biidni illaahi baari wax dhibaatana uma geysanaysa. haddaba arrinkaas waa maxay? waa dhungashada xaaskaada oo dhungatid ama aada shumaysid maalin ramadaan ayadoo ay tahay adigoo sooman. wax dhibaato ah kuma sugna, soonkaadana wax dhibaato soo gaarayaa ma laha. maxaa yeelay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayay ka sugnaatay. caisha waxay leedahay, hooyadeena caisha radia allahu canha wa ardaaha, kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yuqabilu wahuwa saa'im ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه. أيتر رسول كان صلى الله عليه وسلم وحيتر عائشة حاسسكيس أيو لونجنجري إساقو صومن، حاسسكيس أيو تتاونجري إساقو صومن. wax dhibaato ah oo arrinkaa ku sugan ma laha. laakiin waxay tiri rasuulka sala allahu calayhi wasalam naftiisu wuu ka adkaa. haddii naftaada aad ka adag tahay oo dhibaato kale aadan sameyneynin oo dhungashadaas wax ka shisheeya aysan imaaneynin, haddaba waa lagu ogolaaday. maxaa yeelay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa sameeyey. soonkaadana wax dhibaato ay soo gaarsiinaysaa ma jirto. laakiin shardi ayaa meesha ku jiro, waa in naftaada aad ka adag tahay. haddii aad u badinaysid oo shaki uu kugu jiro ood isleedahay ar-amaad wax qarbudaa, ar-amaad wax halaysa, haddii aad isleedahay markaas bataatan oo joojinaysaa oo lama ogola markaas. nabigu maalin waxaa u yimid, jaa rajulun ila nabiy sala allahu calayhi wasalam, nin dhalinyaro ayaa nabigu u yimid. markaasaa wuxuu ku yidhi, yaa rasuula allah, uqabilu wa ana saa'im. rasuulka ilaahayow xaaskayga ma shumiya anigoo sooman oo ma dhunkada? qaala laa, maya. wax yar kama soo wareeganin, wax yar kadib nin oday oo socda waa kana, yaa rasuulallah, uqabilu wa ana saa'im. rasuulka ilaahayow xaaskayga ma dhunkada anigoo sooman? qaala nacam, haa wayo nabi sal ly slam. waa la yaabay, saxaabadii way yaabeen. subxaana allah, waaba yaabeen arrinkii. wiilkii yarka ahaa loo ogolaaday inuu xaaskiisa dhungada. wiilkii yarka ahaa xaaskiisa waa loo diiday inuu shumiyo uu dhungada. ninka odayga ahaana waa loo ogolaaday. subxaana allah, waa arrin lala yaabo soo maha. nebigu markuu arkay inay la yaaban yihiin arrinkaas ay isfirfiirinayaan ayaa wuxuu yidhi, ina ashaykha yamliku nafsah. sheekada waa lasoo gabeeyey. wuxuu yidhi, ninka odayga ah naftiisa wuu ka adegayo nebiga sala allahu calayhi wasalam. wiilkan yarka ah waxaan ugu ogolaan waayey oon ugu diidaa waxay tahay, waxaan u baqay uu yidhi naftiisa inay ka tanbadata oo arrin kala uu gala. haddii aan u ogolaan lahaa ayuu yidhi, waxaa laga yaabaa in arrinta intaasba ay dhaafto
oo arrin kale ka weyn uu guda gala ayaan ka cabsaday laakiin ninkan odayga ah waan u ogolaad maxaa yeelay naftiisu ka adeegay ninkan odayga ah naftiisu ka adeegay saas darteed saddexda ilaahi subxaanahu wa tacaala maalinkaas yowmal qiyaamo uusan fiirinaynin cadaabkana u waajibiyey nabigu wuxuu ku daray shaykhun zaanin nabi sal xasan ashaykh zaanin nin oday ah oo haddana zinaysanaya oday ama hawar zinaysanaysa wax u geyna malaha sooma saddexda ilaahay maalinka yowmal qiyaamo uusan fiirinayn cadaabkana uu u waajibiyey ayuu nabigu ku daray sala allahu calayhi wasalam ninka dhalinyarka ma soo galin ninka dhalinyarta ah shahwa ayaa ku beeran oo naftiisa ma celin kara waxbaa ka tan badan waa aragtay dhalinyarta waxaa weeyaan waxbaa riixaya soo maha qofka markuu dhalinyaro yahay isaga dhamal waa qof dab ku dhex jiro weeyaan isaga dhamal waa gubanaya maxaa gubaya shahwadaa gubaysa laakiin ninka odayga ah shahwadiisaa daciiftay shahwadiisa ayaa daciiftoo wuu iscelin karaa ayuu yiri nabiga sala allahu calayhi wasalam marka laa ba-s wax dhibaato ah kuma sugna haddii maalin ramadaan xaaskaada aada dhunkatid waa inaad laakiin shardigaas aad ka soo baxdaa oo naftaada aada ku kalsoon tahay naftaada aada xamil kartaa ood ka adag tahay sida rasuulka uu sameeyey laakiin dhalinyarta waxaan kula talinayaa inaysan maadaama arrinkaas uu adeeg yahay dhalinyaro waxaa jirta qaarkood oo iscelin kara laakiin waxaan ka wadaa dhalinyarta badanaa si ay u badan yihiin in arrinkaa dhib kale uu u geysan kara ya man xaamal ximaa ninkii ku wareegeysada meelaha dowladda ay diiday marka dambe uu ku dhici soo maha goobaha dowladda ay diiday ninkii ku meereystay marka dambe waxaa laga yaabaa inuu ku dhacdo marka maxaa kugu haqsadayba ya inaan ku dhacdaa laga yaaba soo maha inaan ku dhaca laga yaaba haddiiba shaki uu soo galayo iska dhaafba wax dhibaato ah ma laha hadhow bedelkii soonkaada uu fasahaadi lahaa oo dhibaato weyn ay meesha kaa soo gaari lahayd waxaa fiican inaad marka horeba aad ka gaashaamatid oo iska dhaaftid ood ka fogaatid bishan ramadaan ayadaaba iska maalmo yar ah ayaaman macduudaad waa maalmo yar ayadaaba dhammaanaysa habeenkiina waaba lagu ogolaaday way ku sugaysaa marka haddii laakiinse walaalayaal naftaada aad ka adag tahay xaaskaada waad shumin kartaa waad dhungan kartaa maalin ramadaan ayada oo ay tahay wax dhibaato ah kuma sugna rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa sidaa sameeyey marka intaas ayaan rabay inaan idinla wadaag maanta allah nagu anfaca aniga iyo idinkaba marka ilaahay subxaana wa tacaala soonkeena hanaga aqbala mina wa minkum aniga iyo idinkaba dhammaantayada ilaahay soonkeena hanaga aqbala kuwii laylatulqadr ilaahay subxaana wa tacaala uu waafajiyey allaha naga dhiga kuwa soonkan dembigooda loogu dhaafay ilaahay subxaana wa tacaala hanagu dara maxaa yeeley nabigeena wuxuu yiri sala allahu calayhi wasalam ninkii bil ramadaan usoo gasha aanan ka faa-iideysanin naarta waaba galee allah ku fogeeye jibriil ayaa sidaas ducadaas ayaa duceynayay nebi maxamedna aamiinta ayuu qabtay marka naarta allah ku fogeeyey ayuu yiri malakul jibriil nebi maxamedna aamiin ayuu yiri marka waa halis qof bishan ramadaan intay soo gashay aanan ka faa-iideysanin kuwii ka faa-iideystay ilaahay subxaana wa tacaala camalkooda uu aqbala allah naga dhiga ilaahay dembigeena iyo dembiga waalidiinteena allah dhaafa marka kheyr fara badan ayaan idin rajeynayaa walaalihiin la wadaaga yaysan idinku koobnaanin keligiina dad badanaa laga yaabaa inay arrintan ay u baahan yihiin inay ka faa-iideystaanna ay mudan tahay marka walaalihiin gaarsiiya like-tana saara insha allah
waa inuu video xiga hadduu ilaah yiraahdo. intaas ayaan kusoo afmeerayaa. hada wabillahi tawfiiq wasala allahuma calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. baarakum allahu fiikum. allah idin barakay.